بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلت جوجتان بإله سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدة دبنبك الله كقاضو عديدان الله وفي انت باهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انتي دمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستو أنا الله نوغدب نحريستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. Waxaan arkay xasan shire abgaal oo garow ka hadlaya. xasan wuxuu dhaleecaynayaa eedaynaya cambaaraynaya Siciid Dani. hadduu jiro hal qodob oo lagu amaani karo Siciid Dani oo waliba reer nugaaleed dadka la yiraahdo abaal iyo axsaan loo galay ah, waa inuu Aaranjaan Maxamuud Shido iyo Siciid xasan shire uu Siciid ka saaray siyaasadda kadib markay iyagu keeneen oo soo galiyeen. Siciid wuxuu noogu sheegayaa inuu yahay shaytaan iyo jin iyo balo, isaguna uu nifac iyaguna ay dad fiican yihiin. yaantii hore waa iswadateen mowqifkan Siciid ka taagnayn baa weli ka taagana oo anagu Siciid lama soconno, laakiin markuu idinka cayrsaday wixii aad heshiiska ku ahaydeen oo aad ahaydeen co-criminalska ahaydeen oo dhibaatadii reer Puntland aad u geysateen oo colaad iyo abaar iyo fakhri iyo boob ahaa, markuu dibadda idinka tuuray oo isagu isku gaar yeelay inaa annaga nooga dhigtid ibliis adiguna aad noqotay weli soo daahiray, war waxaa cidina idinka aqbali mayso. siyaasaddana waa ka dhimateen. reerka aad u dhalateen qof ka midoo hadli karaa ma jiro. maalin walba aniga laygu dhahay Aaranjaan baa tahay, tarihii baad u xanaaqsan tahay. war anigu tara ma rabin, anigu yaa watay ma xasan shiraan watay, waxaan rabay uun Siciid in la saaro. laakiin markaan kuwii la tartamay oo dhan eegay, waa anigii iri Siciidow bowe baa ka dhacaysa kuwaas ii muuqda haddii la doorto. waa anigii mowqifkaygu saa aha. laakiin Siciid maadaama uu yiri dowladdii Soomaaliyeed oo aan taageersanayn oo ahayd dowladdii farmaajo iyo nabad iyo nolol, uu yiri ninkaasaan kursiga ka kicinaya, aniguna waxaan arkaya fair game inay tahay in isagana kursiga laga kiciyo, cid kastoo ka kicisan aan ku taageero. mowqifkaygu anigu halkaas ah. laakiin Aaranjaan siyaasadda inay ku soo noqdaan waxay u tahay liidnibay u tahay Ciise Maxamuud iyo reer nugaaleed. hadday aqbalaan nimankaasu inay horgalaan oo mar dambe ay siyaasadda madax ka noqdaan oo muqaddam u noqdaan, ceeb iyo fadeexad baa reerka ku dhacaysa. nimankaas way fashilmeen. qofku hadduu fashilmana gadaal baa la geliyaa, tag baa la yidhahdaa, oraska tag. ha noolaadeen nimanku waxay boobeen oo horey u boobeen, hadday ku filan yihiin iyo haddii kaleba ha ku noolaadeen. laakiin inay mar dambe siyaasad hor istaagaan absolutely anigu ma qabo. dadka u sacbinaya oo mashxaradayana waa iska ogaayaan, haween masaakiin oo lacag la siiyo $5 loo tuuro inay mashxaradayaan. laakiin dadka intay garab istaagaan isku sawiraya, nasiib darra idiin tahay inaad Aaranjaan isku soo sawirtaan oo isku sharaxdaan maanta, oo aad soo sharaxdaan iyagii oo ay booteeyaan oo garow ka booteeyaan. haddii Puntland cusub la dhisayo iyo haddii tii hore la haysanayo iyo haddii lagaba guurayo oo laiska badaynayo, midna Aaranjaan in laga talageliyo maaha, saxna maaha, khalad wey absolutely. waxaa kuu soo haray Siciid Dani. annagu sidii baan weli ugu khilaafsannahay burburka uu ku hayo ummadda. waa run inuu ku xiran yahay xere military, waa run inuu magaranaysaa dadkii mushaharkoodii lalaa'yahay, waa run inuu boobayo hantidii ummadda, waa run, waxaasoo dhan waa run. laakiin adaa keenay isagoo faramaran oo Cumaan jooga, idinkaa keenoo lacagtiina ku fangareeyey oo soo geliyey shaqada. markaa islayseenna markaad israacdeen oo aad meeshii qabsateenna maxaa kula taliseen? waxa uu hadda samaynayaa kula taliseen. dagaaladii ka dhacay waddankaa kula taliseen oo qayb ka ahaydeen. dhibaatooyinkii uu geystay oo dhan baa qayb ka ahaydeen. kadibna isagii baa weerar inta ku qaadeen baa garowe intaasoo qof ku disheen. Aaranjaan siyaasadda ha ka nasteen. waxay ila tahay yacni saaka inuu xasan shire garowe ka booteeyo sax maha. waxaa kaloo aan taageersanahay, kelmadda aan taageersanahay hadalkiisa ku jirtay waxa weeye dadka siyaasiyiinta ah ee reer Puntland in la yidhaahdo Puntland ma imaan kartaan waa dabdaro. weligay baan ka hadlaa. Jubbaland baan loo diidi karin, waqooyiga kuwa loo diiday aan sax ahayn, in garowe loo diidaan. qof Soomaaliya oo muwaatina, iska daa dadka reer Puntland, qof Soomaaliya oo muwaatina oo Puntland imaanaya iyo garowe cid u diidi kartaa ma jirto. cid xaq u leh inay u diidaa ma jirto. waa un dictatorship iyo dabdaro iyo kaa xoog weyne, laakiin sharci maaha. xabaddaa marka waa ku waafaqsanahay. laakiin Siciid Dani 4 sana u hartay.
afar baa u hartay dalku nabad buu rabaa deganaanshuhu rabaa buuq iyo xabad ma rabo afartiisu dhammaysanaya haddaad naf haysaan oo raganimo haysaan oo aad rabtaan inaad siyaasadda ku tartantaan dad waxaad tihiin soomaaliyeede kolley waxaan kula talinayaa reer nugaaleed inaysan idin garab istaagine soo tartama inta ka horeysana adee rayaalow ama iska qaraab taga oo saad u qaraab tagteen ilaa iyaantii waa maqnaydeene qaraabkiini doonta oo xagga aada ama dhoofa oo dibadaha u dhoofa ama ganacsato noqda ama baadiyaba iska aada laakiin ka fariista ummadda mikrafoon dambana ha noo soo qaadanina waxaa xaq u leh inay buuqaan inay kacdoomaan inay qayliyaan inay danahooda iyo aayahooda ka hadlaan shacabka iskale taa waa taageersannahay laakiin nad aaranjaan baarkin gala ummadda ka fariista dadka shacabkaana waxaan leeyahay iyo weliba dhallinyarada weli waxaan idinku celinayaa dalkiina oromadana ka saara iyo etoobiyaanka yaacaya siyaasaddiisana wax ku yeesha oo intaad mudaharaadya ku kicisaan oo buuq ku kicisaan mana ka hadlayo puntland keliya afarta koone intaad buuq ku kicisaan siyaasadda wax ka bedela hadday tahay kismaayo hadday tahay muqdisho hadday tahay baydhabo hadday tahay magaranaysaa galmudug hirshabeelle meelay ahaataba dadka shacabka ah oo dhallinyarada ahi waa inay gaaraan heer ay yidhaahdaan enough is enough doorashooyinka soo socdana waa inay qayb libax ka qaataan hadalka biyadhiciisa waxa weeye xasanow dalka siciid baa xukuma nabad iyo amni buuna rabaa buuq looma baahna qori looma baahna qaylo looma baahna muud ka gal ummadda reer nugaaleed waxaan kula talinayaa war kalaa idinla talinayaa nimankaasu intay idin saarnaan kareen waa idin saarnaadeene intaa ka badan ma sidi kartaane aaranjan waxaad tidhaahdaan na dhaafa oo naga nasta waa laydin bartay waxaad tihiin iyo waxaad gashaan iyo waxaad guddaane nadaaya intaa ku dhaha dalku nabad buu rabaa buuq looma baahna meeshaan nin baa loo doortay mandate buu leeyahay isagaa iska leh idinku ma lihidin u daaya amnigana khalkhal ha gelinina qoryo iyo rasaas iyo baabuurna ha noo soo kaxaysanina dhibkana naga daaya intaa ku dhaha khayr badan baa idin rajaynaya wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu